Ma ogtahay in maanta caalamka ay ku nool yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof oo la daalaa-dhacaya xaalado caafimaad oo dhanka maskaxda ah sida walwal joogto ah iyo niyad jab. Waxaa laga yaabaa qofka kugu xiga, qoyskaaga ama xitaa adiga laftaadu inaad la daalaa-dhacayso xanuunka walwalka. Waa tiro cabsi leh oo muujinaysa in caafimaadka maskaxdu tahay arrin aan cidna ka fogeyn. Ururka Caafimaadka Adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa dhowaan sheegay in tiradani si degdeg ah u korodhay halka adeegyada caafimaadka maskaxeedna ay weli aad u yar yihiin. Qiyaastii qof kasta oo 6 qofba ka mid ah ayaa la ildaran xaalad maskaxeed. Dad badan ayaa dareema walwal, hurdo la'aan, kalinimo iyo niyad jab, balse ma helaan caawimo caafimaad oo ku habboon. Sababaha ugu badan waxaa ka mid ah cadaadiska nolosha, shaqo la'aanta, colaadaha iyo walwalka mustaqbalka. Caafimaadka maskaxdu ma aha wax la iska indhatiri karo, maxaa yeelay wuxuu saameeyaa caafimaadka guud, shaqada, xidhiidhada bulshada iyo xitaa cimriga qofka. Bulshadeenna waa muhiim inaynu kala hadalno arrintan si cad, iyadoo aan ceeb iyo cabsi laga qabin. Haddii aad dareento walwal ama niyad jab joogto ah, la hadal qofka aad ku kalsoon tahay. Raadso caawimaad caafimaad haddii ay suurtagal tahay. Isdaryeel oo adigu sii naftaada hurdo kugu filan. Jimicsi joogto ah iyo la sheekaysiga dadka aad jeceshahay waxay kaalin weyn ka qaadan karaan xaaladaada maskaxeed. Xusuusnow, caafimaadka maskaxdu waa qayb ka mid ah caafimaadka guud. Qof kastaana waxa uu u baahan yahay inuu daryeelo maskaxdiisa sida uu u daryeelo jidhkiisa. Haddii aad daawada halkan nala soo gaadhay, waad ku mahadsan tahay. Wixii kale fikir aad qabto, barteena commentiga inoogu reeb. Mahadsanid.